Alan Michael. Mr. Speaker, can I ask the Prime Minister if he will join me in congratulating the people of Somaliland on the successful, peaceful and transparent election of a new president? As the Somaliland Republic has now been a beacon of democracy in Africa for nearly 20 years, will the Prime Minister ensure that the UK's promise that a new government with democratic credentials would receive increased engagement from the UK? Well, I think the honourable gentleman is absolutely right to raise this issue. It's an important issue and an area of the world of enormous importance for our own security. I join him in welcoming the peaceful and credible elections in Somaliland. These are an example of genuine democracy in an area of the world not noted for it, and the UK provided funding for election supervision. We are keen to engage with the new government, and I believe the key, and I'm sure the whole House would agree, is to prevent terrorist groups establishing their foothold in Somaliland that they have in Somalia. This is vital, and yes, the government will continue to engage. mudanaha ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Labourka ee waddanka Britain Alan Michael oo laga soo doorto magaalada Soomaalidu taariikhda dheer ay ku leeyihiin ee Cardiff ee gobolka Wales ayaa maanta ra'iisul wasaare David Cameron waxa su'aal uu ku weydiiyay baarlamaanka waxaana su'aashu ay u dhacday sida tan. Mr. Speaker, can I ask the Prime Minister if he will join me in congratulating the people of Somaliland on the successful, peaceful and transparent election? mudanaha Alan Michael waxa ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron uu weydiiyay inuu ra'iisul wasaaruhu ku raacsan yahay in dadka reer Somaliland ay tahay in loogu hambaliyeeyo doorashooyinkii madaxweynenimada ay galeen ee sida nabadgelyada ay ku galeen doorashooyinkaasi oo aan madmadow ku jirin oo laguna soo doortay buu yidhi madaxweynaha cusub iyadoo Somaliland muddo ku dhow 20 sannadood imika ay ahayd buu yidhi meel ay ka bidhaamaysay rajada dimuqraadiyadda ee qaaradda Afrika. ra'iisul wasaaruhu ma ka damaanad qaadi karayaa buu yidhi sidii Britain ay ku ballan qaaday inay kaga dhawaynayso taasoo ahayd in dawladda cusub ay la xaalayso dawladdaasoo si dimuqraadiya lagu soo doortay iyo inay ula xaali doonto si ka weyn sidii hore. Well, I think the honourable gentleman is absolutely right to raise this issue. It's an important issue and an area of the world of enormous importance for our own security. ra'iisul wasaare David Cameron waxa uu sheegay in mudanahaasi uu ku saxsan yahay inuu soo qaado arrintaasi oo abuu yidhi mid muhiimadeedu ay aad u weyn tahay taasoo ku saabsan buu yidhi qayb caalamka ka mida oo muhiimad weyn u leh ammaankeenna. waxaan ku raacsanahay buu yidhi mudanahaasi inaan soo dhoweeyo doorashooyinkii nabadgelyada ahaa ee meelmarka ahaa ee ka dhacay Somaliland waxaanay tusaale u yihiin buu yidhi dimuqraadiyadda dhabta ah waxaanay ka dhaceen buu yidhi qayb caalamka ka mida oo taasi aan hore loogu aqoonin. Britanna waxay kharash ku bixisay buu yidhi David Cameron la socodkii doorashooyinkaasi waxaannu si weyn u danaynaynaa buu yidhi inaannu la xaallo dawladda cusub waxaana ila tahay buu yidhi in arrinta ugu muhiimsan ay tahay anigoo filayana in baarlamaanka oo dhammi taasi ay ugu raacsan yihiin in arrinta mudnaanta ugu weylihi ay tahay inaanay kooxaha argagixisada ahi saldhig ku yeelanin Somaliland sida Soomaaliya ay ugu leeyihiin dawladda cusubna waannu la xaali doonaa. safaaradda dawladda Mareykanku ay ku leedahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa iyaduna warbixin saxaafadda loogu talagalay oo arbacadii maanta ahayd ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dawladda Mareykanku ammaan ay u soo jeedinayso dadka reer Somaliland iyo guddiga doorashooyinka qaranka iyo waliba axsaabta siyaasaduba in ay sameeyeen doorashooyin si nabadgelyo ah ku dhacay bishii Juun 26keedii. waxaana wararku ay sheegayeen bay yidhaahdeen inay ku dhaceen si guud ahaantii nabadgelyo ahayd oo nidaamna lahayd. warbixinta ka soo baxday safaaradda Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in sidii weyneed ee doorashooyinkaasi loogu soo baxay ay muujinaysay in dadka u dhashay Somaliland ay ka go'an tahay inay xuquuqdooda gutaan. waxaanay goobjoogayaashii doorashooyinka ka qayb galay ay tilmaameen in habkii ay ku dhaceen doorashooyinkii 26kii Juun ay ahaayeen qaar inta badan ku dhacay si xora oo cadaaladna ahayd. safaaradda Mareykanka ee Nairobi waxa ay sheegtay in doorashadani ay ka dhigan tahay rukun muhiima oo ay sameeyeen dadka reer Somaliland. waxaannu u hambaliyaynaynaa bay tidhi warbixintu murashixii ku guulaystay waxaananu murashaxiintii kalena ku ammaanaynaa bay yidhaahdeen sidii hogaaminta lahayd ee ay u aqbaleen natiijooyinkii soo baxay.
waxaana war-saxaafadeedkaasi lagu soo gabagabeeyey in Maraykanku ay ku boorinayaan dadka reer Somaliland inay sii wadaan dadaalkooda ay ugu jiraan in hannaankaasi uu noqdo mid meel mara oo si nabadgelyo ah lagu soo gabagabeeyo oo qiyaas ahaan 30 maalmood gudahoodana lagu dhaariyo murashixii ku guulaystay